madaxweynaha dalka Brazil Lula da Silva ayaa isaguna sidoo kale u hambalyeeyay madaxweyne Erdogan. Waxa uu sheegay dowladda Turkigu inay tahay dowlad muhiim u ah dhaqaalaha dalka Brazil, waxaana uu sheegay siyaasad ahaan sidoo kale inay yihiin dalal aan kala maarmin, uuna u baahan yahay mustaqbalka dhow inay ka wada shaqeeyaan arrimo siyaasadeed oo caalami ah. Mulki Cabdulkabiir oo isagoo ah ra'iisul wasaaraha ku-meel gaarka ah ee maamulka Daalibaaniyiinta ee dalka Afghanistan ayaa isaguna u hambalyeeyay madaxweynaha Turkiga Erdogan. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Malta Jan Borge ayaa isaguna sheegay qalbiyadooda dhammi inay la jiraan dadka Turkiga iyo rabitaankooda, waxaana u hambalyeeyay madaxweyne Erdogan. Madaxweynaha dalka Algeria Cabdilxamiid Tubane ayaa isaguna sidoo kale hambalyo iyo bogaadin u diray madaxweyne Erdogan. Daawadayaal, waxaynaan soo koobi karin madaxda adduunka ee doonaysa inay u hambalyeyso amaba u hambalyeeyey ruuxadaagan siyaasiga ee dib loo doortay. Erdogan ayaa waxay tahay siyaasaddiisu mid adduunka looga baahan yahay, waana madaxweyne dhexdhexaad ah, mar walbana caddaysta go'aamada iyo aragtiyaha uu adduunka ka leeyahay. Ugu dambaynna, anigoo ku hadlaya afka kanaalka diblomaasi iyo taageerayaashiisa, waxaanu hambalyo u diraynaa madaxweyne Erdogan iyo weliba guud ahaan dadka Turkida ah, annagoo aan ka reebayn dadyowga Islaamka oo dhan. Shakhsi ahaan aniga doorashadan ka dhacday dalka Turkiga ayaaba waxay la ahayd mid u dhaxaysa gaalo iyo Islaam, guushiina ay Islaamka raacday.